هذا أمها سنتهاي dadka goolay ku soo barakac u badan yahay sida ogtaaba goolay waqooyi muqdisho waxay u jirtaa waqooyi muqdisho jirtaa dadkuna hadda badanaa waxay soo barakacayaan deegaanada oo dagaal ku socdo oo ugu xagayso ilaa Ceeldheer Segawaay Kalcad Furunadbuud Ceelbaad ilaa iyo Hidowlagaab علي أحمد dhulka soo dhan sida ogtahay iyo dhulka hadda dadku ku sii jeedaan qoladii nabadiidka ay ku sugan tahay oo dawladdu ku sii socoto dhulka soo dhan dadkii macnaha markay soo qaxaan ay ku qasbayeen meeshii waa baadiyo iyo la'aana ka jirto sida ogtiina abaar fara badan aba ay ka jirto baadiyo ida waxoodii waxay daagan laayahay haddana colaada uu sii darsoontay dadku sidii u soo socdaan magaalada waxay ka soo galayaan wali ku hakanayaan meeshaas waxa waaye aan ka sameeynaa inaan soo dhaweyno nabadgelyadooda aan xooga saarno meelaha ay degi lahaayeen alxamdulillah waa inta tabara waa dadaalnaa dibuujidina u sameeynaa marka intaasaan sameeynaa dadkuna areas ka soo qaxayaan hadda aan ku sheegay sida ugu badan waayo dagaalkina uu daba dheeraado dagaal socdo maalin daayina waa hore loo sii socdaaho shaqadu way socotaa marka maadaama dhulkaas uu hadda difaacidii Koryaalin oo yahay dadkii ku noolaayo dhan way soo qaxeen marka intaasan sheegara waa gartay dadku hadda intooda badan waa heleen meel ay degaan intaqaana oo ay caruurta jiifsadaan balse nolol ma jirto sida aan deegaanka ku soo aragnay saas oo ay tahay haddana weli qulqulka ayaa socda idinku ma heli kartaan intaas in ka badan goobo ay degaan wallahi waa iska qiyaasi kartaa hoos dadka sida badan oo soo qaxayo dadku horta qof waliba dadkan ay ku hiigsanaysaa meel wala oo ehelkoodu oo ka dhow yahay aadayaan qofkii markuu soo galo badana wuxuu ku degayaa aada guriga ehelku aada dadna ehelku meel ka jiraan ma yaqaanin magaalada iska soo galayaan si waxay ku leeyihiin meel intaan ku noolaana oo nabadgelya kuwana marka ehelkoodii la nool yihiin oo waxa waaye magaalada soo galeenay ciidii kor fuuleen qaybtii oo macnaha hadda magaalada aan dadkaas ugu soo horeyno fahamsanayna aan sameynaa dibadejina u sameynaa walaal dadku aad u badan yihiin barakacayaasha oo ka soo qaxay ariyaas tiradooda ilaa iyo waaga xataa la soo koobi karo waayo maalin walba imaanayaan oo soo kordhowayaan way socdaan maalintii 30 ilaa iyo 10 ay imaanayaan marka alxamdulillah waa dhibaatadaas dagaalka oo nimankan cadawga lagu jiraa keenay alxamdulillah waa laga bixi doonaa rajeynina insha Allah marka cid allaala cidkaas barakacayaasha iyo masaakiinta wax uga kartana soo dhaweynayna kulay boodadana waa gudbino gobolka Banaadirna waa gudbinay abashooyinka iyo aadana waa gudbinay in allaala intii qaraabkeen insha Allah marka in loo soo jawaabi doono suweena waxaa jira dabcan mararka qaarkood dadka waxay aaminsan yihiin in dadkan barakacayaasha ah soo qaxaya in lagu soo dhex dhuuman karo oo qof iyo laba argagixisad kamid soo dhex gali karo idinku sidee u kala shaandhaysaan wallahi huu la amniyo gooni waa taas haye baarik kala shaandhayna insha Allah واقرس بل gabagabadii haddaan ku weydiiyo gudoomiye adigoo aad iyo aad u mahadsan bal fariinta dawladda aad gaarsiinayso iyo shacabka guud ahaaneed adoo eegaya xaaladda dadkan wala fariintayna waa dadkaas masaakiinta qaxootiga oo xoolahoodina baabeen meeshana hadda dadku ku caaway aysan jirin oo deegaanadooda ay hay'adu tagayeen xoolahoodina baabeen dagaalkina oo saameeyay oo masaakiinta oo qaxootiga qayb kamida waxay ku leeyihiin xoolihii waxaaba wataba nimankii waariista watay ku leeyihiin qaybna waxay leeyihiin abaartiyaa baabeysay cilmiga kacban waayeen in la soo dhaweeyo dadkaas guudajin loo sameeyo
waxa la wixii gargaar oo la soo gaarsiin karana la soo gaarsiiyo baaqaas dirayna kulay dawladuna waa gudbinay in dhibaatadu dadku si u soo barakacaan ay halkaan imaanayaan marka harijeynina insha Allah inay dawladuna arki doonto hay'aduna arki doonaan anaguna aan intii tabaraho aan heli karnaa u shaqeeyno insha Allah